xukunkii maxkamadda sare ee dalka Sayid Cali Macalin Daawud ay ku raacday maxkamadihii ka horeeyay ee racfaanka iyo sidoo kale tan gobolka ayaa Muqdisho waxa ka bilowday kulamo ay yeelanayaan dhinacyada si xal looga gaaro in Sayid Cali Macalin Daawud ehelkiisa ay ka bixiyaan mag oo ay siiyaan ehelka Luul Cabdicasiis. odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa saacadihii u dambeeyay waxa ay wada qaadanayeen kulamo hoose oo warbaahinta laga qariyay. warar hoose oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in ehelada labada dhinac ay wadaan kulamo gooni ah oo looga arinsanayo sidii guud ahaanba mag loo kala qaadan lahaa. Sayid Cali Macalin Daawud saddex maxkamadood oo kala duwan ayaa soo xukuntay, balse eheladiisa oo warbaahinta la hadlay maalmo ka hor waxa ay sheegeen in iyagu aysan raali ka ahayn kicinta baraha bulshada ka bilaabatay maalmihii dambe wixii ka dambeeyay xukunkii dhacay. arrintaasi waxaa la soo wariyay inay ku hoos jirto arrin kale oo la doonayo in guud ahaanba xal looga gaaro kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo labada dhinac xal ay kala gaaraan isla markaana diyo la bixiyo. wararka sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in hadda meel wanaagsan ay marayaan in guud ahaanba la soo afjaro isla markaana kiiska Sayid Cali Macalin Daawud lagu dhameeyo in banaanka uu yimaado oo mag laga bixiyo sida xogta ama wararka aanu ku heleno. kulamadan goonida ah oo ay wada yeelanayaan beelaha labada dhinac ay ka kala matalaan ehelka Allah u naxariistay Luul Cabdicasiis iyo sidoo kale ehelka Sayid Cali Macalin Daawud ayaa sii xoogeysanaya kulamadooda, waxaana lagu wadaa in dhawaan laga soo saaro war ka duwan kii hore ee ahaa in Sayid Cali Macalin Daawud dil toogasho lagu xukumay. qaar ka mid ah ehelada oo aan la xiriirnay labada dhinac ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen in faahfaahin dheeri ah oo inta ka badan ay ka bixiyaan, balse waxay noo xaqiijiyeen inay jiraan kulamo odayaasha dhaqanka labada dhinac ay isugu yimaadeen, kulamo kalena lagu balansan yahay si guud ahaanba loo soo afjaro murankii muddada badan taagnaa ee ahaa in Sayid Cali Macalin Daawud loo qisaaso ama loo dilo Luul Cabdicasiis oo maxkamadaha kala duwan xukun ay ku rideen isla markaana ay cadeeyeen in isaga dilka uu geystay. meel wanaagsan ayaa la warinayaa in hadda xaalka uu marayo, waxaana suuragal ah in maalmaha soo aadan guud ahaanba xal laga gaaro kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo qabsaday muddooyinkii u dambeeyay warbaahinta gudaha. maxkamadaha kala duwan ee dalka ayaa kiisas horay ay gacanta ugu hayeen waxaa dhacday in laga daba yimaado oo mag la kala qaato. arrintan hadda jirtana waxay u muuqanaysaa inay la mid noqoto kiisaskii hore isla markaana labada dhinac ay kala qaataan mag ama diyo si guud ahaanba meesha looga saaro wararka sheegaya in Sayid Cali Macalin Daawud dhawaan la toogan doono oo dil toogasho lagu fulin doono. daawade adiga sidee kula tahay in labada famil ama labada dhinacba iyagu diyo ay kala qaataan isla markaana Sayid Cali laga badbaadiyo kiiskii lagu xukumay ee dilka toogashada ah? aragtidaada barta hoose inoogu reeb.